waxaan tusayaa waxyaalahan social media ku aragtaan inay bacrimis yihiin ayaan tusayaa hada dagalaadihiin oo qabyaalad dhagaha ne xidhay indhaha ayaan naga tusaynaa iyagoo picture ah sidii caadada ahayd waan guda galaynaa gabadhan Hana la yiraahdaa waa gabadh Samarona waxay ka soo jeedaa Somaliland laakiin followers ay ku heshaa waxyaalahan inay ka sheekayso iyo kamsar baan ugu soo tushay yaay halkaan naga timid basal baa halkaan uga timid waa in cadow lagu sameeyaa moogta daarood baan ugu soo duulay hawiye halkaan uga hayaay marka ka sii dhawaadana habar jeclaa kugu soo duulaysa habri warisa iska celi hawar wala ka ilaali war dadka waxa loo qabtaa loo baahaye ya abgaal baan nacab habageedar baan nacab ruusada halkaas naga eegaya bajartay halkaan naga soo eegay ya wara xariir wax qabsado waa wareerna waa ni daaraya حساسية أي بربرون كان إيران وربطوا هذا أمر إني شيء سياسيا دبلوماسيا جت وحيد أدوك وحلقة الدبلوماسية يا عقلي دبلوماسيا هذا واحد عين نمن كمرك رويال فاميلي جا لصوا عليا رويال فاميلي جا إثيوبيا وتجري محار تجري مرك ما أنت وحو تجي سفير هذا بدن بيلي المكتئب محارتنا حتى محارضة يتكريا أبسينيا لسكويد هذا waddanka kaligood inay maamulaan ay rabaan waa sida wadaarad iyo hawi meesh marka iyaga ayaa waxay jecel yihiin in labadooda kaliya ay maamulaan dadka kala dhax ku jira ay noqdaan adigu markaad ku geeyo ma baddan baa lagu siinayaa marka uu malaayinta ka soo gashay adduunka ku baysan waa may waa wareejinayaa Soomaaliya marka bari hore sadaqad lagu tuuray halkaas cadow binta dhisayaan cadowga waa la garan lahayaa ma basal halkaan ugu soo warto yaayo tawando galban ugu soo duulay Islam baan ugu soo duulay Mexican ugu soo duulay Japan baan ugu soo duulay hebel baan ugu soo duulay hebeloonis baan ugu soo duulay hawar jeclaan ugu soo duulay hayaay ciida galaan ugu soo duulay dhul baantaan ugu soo duulay warsagal baan ugu soo duulay habeen baan ugu soo duulay waa qabad ma jiro waa baan waa propaganda anaga meeshan waxa weeye waa dhagalaadihiin moogta maadaama dhagalaadihiin oo rabtaan in la tuso sida picture ahaan aan nagu tusno ila qabyaalad baa dhagahana tirtay moogta picture ahaan waxaan intuu sameynaa meeshan waxaan iyo all in moogta wasaasan lana picture nagu tusayna inaad wax ni fahansiina kuwa waliba dhagta waa weyle shacabka anigu socono Soomaalidu masaakiin way kullu wax isnaa maray nimankan ku soo nimankan xaqiiqo way taas wala boqor muxuu marka oranayaa hadda siyaasadii dhan adduunka galba xiraha anaku waan go'aynaa anaku waa go'nay ana kaarna inaan isku kulno maalinta lagu ictiraafo buu inta kale la wareegaya abxaarta the same hadda ayaga iskaashanaya inay ka takhalusan hor abasiiniya baa la isku yiraahdaa labadaas waa hawiye daarado kale iyagu baa raba inay wadanka maamulaan oramada maxay adduunka la timid nimankan waxay ku sasabaysaa ogo adigu hadda go'did economigaaga hoos u galaya bad ma yeelanaysid ورمضان يساق بين نقط أقول صحيح ورمضان طالع هاي الباص ريتشيز ما نقرينا أنا قلنا وكاترة بدنا هاي بدنا بين اللي وريجينا مرك ما فضل كفتض هذا وشيء أساس الأولى تقريب مرجع إلى هذا صوماليا بدينا مربو اللي الدبلوماسية يا لقوا رقبة وامي دبلوماسية و under the table way كسر لقاط ليه ورمضان مرك حتى بحكي قنعنيسا ورهوي شوقة ورهوي رزق باصوص عذا ورهوي رولكي بسوع الشرينا without any حل رصاص نكو ردين باهلني ضد أنك الديار ما إني ما كان نوب الدلان ورهوي شوقة ورلعك هذا ده قدين كاتش هدلقوا إيسا ما يما بربو هذا هو حديه هذا الدون كيجا الدون كيجا في أيوه قال إسلام بيسيسيان أيوه قال إسلام ويسكرنا هذا وقال إسلام معها ورمضان ضد مسلمين إليهن إثيوبيا قومية بدو فرابدنا مسلمين أجرا Soomaalida markay hadlayaan aniga waxaan isiri ma waxay u sheekayaan dad dhagala ma dad xerooyin ku jira bay u sheekayaan saan iskula sheekaystaan waa dad qolal ku jira ana ma qolban ku jirnaa aan ku socono wuxuu kuli adu adoonkayga ay ahayd aniga waa xasuuqay awalna muxuu ahaa haafna muslim baatiin no
ما جرت Soomaaliga markaa keebu joogaa Soomaaligu wuu hurdaa Soomaaliga wuxuu leeyahay cadawiyadii in laga soo sheekeeyay way moogtay yaa nagu soo duulayso basal baa nagu soo duulay baradha halka nooga timi kamsar cagaar baa xagga nooga yimid ya bataati yaa nagu soo socdo dareeca marka hebel xabadna soo tuuray dhac igu tuur anigu waxaa haysan anigu waxaa daaro tawiye bas adduunka marka waxa la isku dagaalayaa waxa weeye walaalo wada ogtahay hawiye iyo daarood baa raba inay Soomaaliya u taliyaan jareertimeeda raxan weyntimeeda qabiilaadkii kala meeye laga tarabadnaa lagama tarabadneed lama codeeye ka looga tarbaday dhulkii baa dadka laga xoogaya marka waxay ka sheekeynaysaa waxyaalo aan realistic ahayn mugti kabadho hadaladeeda ayaana isjabinaya xitaa qofku ma laha qofka bil aadanka waa in uu leeyahay mowqif uu ku hadli karo mugti uu sheegi karo wuxuu raban uu sheegi karo dhageyso way isjeeri doontaa yes علاقات تاريخية وكالة لكن ستيل Soomaaliya عينيسا يعني for example حتى نينا كحنا قصة ما بعيني وحيرة ووضع لك حساب ووضع لقرحية ووضع وكذاب وبرع بديت كوبوتلا ماشي السوق قرحيان ومقتشو ليش علشان صار السدا عشان عربي سيف حدا isjeeraysa ma aragtaa of course waxyaalahan waa wax jir and I definitely understand laakiin waxay tir ma taqaanaa wasjeeraysa markii hore waxay tir ma garanaysaa Somaliland ayaa dadka ugu waaweyn ma garanaysaa Arsenal ay ka soo jeedaa ma garad ma aha walaalo dadka deegaanka leh meesha ka soo jeedaan baa qurunkana leh hadaad gurigaaga tan kugu imaado oo ma garanaysaa gurigaaga urayo ma anigoo imaaday baa gurigaaga uriyay mise adiga uriyay de may dhagalaayeen waxan wallahi picture-an igu sheegayna hadaad aamis weydaan waxaan kaloo sheegayaa dawladda Somaliland hadayna rabeen inay cadow iyo hawiyaalka naga eegay wala nala leeyahay Soomaali baana necab maxay waxaan u cadeyn weyd wala ugu kala dhufanaya dawladda Soomaaliya maxay waxaan u cadeyn weyd dadka lagu kala dhufanaya ilaa adigii baa la rabaa in xeero yar lagu soo dhamoogti oo lagu sheekay kamsar baa nagu soo ortaysa yaanya halka nooga tim basal baa ma halka nagu soo socoto hayaay cadawga iyaga ayaa badan Ethiopia nagu soo socoto Mareykan baa nagu soo socdo gaala nagu soo socota sidii caadada ahayd halkan ayaan kusoo gabagabeynaya Jimca Mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.